hogaamiyaha madaxweynkiisu dhamaaday ee galmudug ayaa qorsheynaya laba arrimood oo isbarbar socda. axmed qorqor oo aan lahayn waqtigan gacal siyaasadeed ayaa qoodareynaya inuu iskaga huleelo galmudug oo waqtigan foolanaysa isbedelo cusub iyo duufaan siyaasadeed. qorqor oo qorshihiisu ahaa markii hore inuu dib iskugu cimaamado mar kale xilka madaxweynaha galmudug ayaa arrintaasi noqotay hal bacaad lagu lisay. cadaadiska ugu xoogan waxa uu kala kulmayaa beesha degta koonfurta gaalkacyo ilaa iyo bariga gobolka mudug, kuwaas oo wacad ku maray in galmudug ay u baahan tahay isbedel siyaasadeed. axmed qorqorna uusan kursiga sii fadhin doonin. waxaa arrintu cirka isku sii shareertay kadib markii beeshu kulamo siyaasadeed ay ku yeelatay magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo, kuwaas oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin, xildhibaano ku matala federaalka iyo duqeyda dhaqanka oo si wadajira u sheegay in isbedel ay ka rabaan galmudug. geesta kale waxaa saacadihii lasoo dhaafay baalka axmed qorqor ka baxay siyaasiyiinta beesha degta magaalooyinka cabudwaaq iyo balanbal. xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beesha degta magaalooyinka balanbal iyo cabudwaaq oo markii hore qorqor ku garab ahaa ayaa hadda boorsooyinka ka agrartay, kuwaas oo saacadihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan la yeeshay agaasimihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad. dadka u dhuundoleela arrimaha siyaasadeed ee galmudug waxay qabaan in axmed qorqor uu ka niyad jabay hankii ahaa inuu mar kale ku soo noqdo xilka madaxweynaha galmudug, waxaana la qabaa in haatan uusan xitaa isku soo sharaxi doonin xilka madaxweynaha galmudug.